arrin baa taagnayd wakiilka umamul mutaxida ama qaramada midoobay ee Soomaaliya la bedelaa la yiri oo wadankaas kaga baxo dadku siba u kala qaadeen waxa ka hadlayay siyaasiyiin badan balaaya soo dhacaysa dawladdan way degdegtay qar iska tuur weeye cunaqabatayn baa lagu soo reegay waxa laga qaadan doonaa waxa la wixii umamul mutaxida baa baxay qaramada midoobay ninkii u joogay bax baa la yiri waa baxay qaramada midoobayna way ogolaatay inuu baxo وانا لسو بدلaya kiiskaasina halkaas ugu dhamaaday waxaan rabaa marka inaan iraado waxa u baahan fahamka waxa weeye 20 sano iyo 30 sano ee la soo dhaafay wixii soo socday waa in la bedelo qofku haduusan isagu isgelinin wax la cizi iyo sharaf na Allah si kale ku bedeli maayo in Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim waxaan ogaan jiray wadamada dariska Itoobiya Kenya oo looga yeero madaxweyne Soomaaliya nin walba siyaasi oo halka inta lagu soo kulmo loo soo dhiibo wixii la rabo madaxweynahani markuu yimid Farmaajo wuxuu yiri aan wada shaqeyno dad equal baan nahay oo aan wada hadalno way u hirgashay Carabta Sacuudiga Imaaraad iyo Fulaan ba sarta ka yeeli jiray iyagana waxa la yiri aan wada hadalno umamul mutaxida qaramada midoobay ba hadda qaabtay loola dhaqmaya بني آدم كهدادن أدو إسعزينين أوضن شرف سويلين أوضن مضحاجة كرء قادن عدنا كو قادم ميسو دبكي الوحاري اللي وقبتو أيا دنبسكي سلقا الليحدا وأين الددك اللي عن وضع هذا وحيابها عجبت بضن ويعجب قلي الله يابك لإيه انهزام كداخل جودها إيو نياد حمادة ددك قار كجر السياسيين وحن فيرين إن مدحوين صومر الصوماليات أو انتو كهلي عرينتا صوماليا وحوليه إثيوبيا إريتريا ومدحوينه لسه هالشيء أنا إثيوبيا وحوالله ما قيبسن كرر إكوال منهن إسلامي إكين ضد وضع هالله كريوة مني واجن سوق قاعد نوبا وضع هالله دونا بالله عليكم يعني وحبا هو فهم كأن كهالله يا رب إن لبدلوا وياه هذا بو حنا رب والله ليال إن رهو ضدك صوماليات دولة جرتا هدينا خلاف مخالفات شرع الإسلام كوكعين إلا أيدو oo la difaacay waa laga maarmaan maalintii xasan sheekh maxamuud la doortay ayaa waxaan ku yiri dadka masaajidkan habeenkii ka hadlay waxaan yiri ma la yaqaan ninkan waxa la yiri wax yaqaan anu ma naqaano waxa hadaba hadda u duceeya waxaan ogahay madaxweyne walba wada habaartaan u duceeya maanta idin la gudboonaan tahay dhowr bilood kadib baa la yiri maalin inuu ku jiro meelaha dadku ku kulmaan baraha oo ummad ila dhowr kun ay ku jirta baa Sheekh Axmed u duceey madaxweynihii Masar Mursi waxa intaan Mursi u duceynin horta madaxweynaheena u duceey maad dhahdaan marka waxaan ka wadaa mar walba dawladda jirta anaga qof hebel iyo hebel ma aha muhiimadu ee waxa weeyaan sharafta Soomaaliya karaamada Soomaaliya siyaadada Soomaaliya in la difaaco waa laga maarmaan weeyaan